marka dil horta reelas aad waxay oran jireen waa dagaalanaaye maxay dagaal ahaan wax isaga celin waayeen su'aal meesha ku jiri karas wuxuu yiri war anaga waxaan haystay buu yiri xarbun qabaliyun tadcamaha usuuliyada dawliya وما سنتهي ان وريه غالب muruga gobolka Sool ka jira ilaaqa cad buu la leeyahay wixii ka dhacay 25 sano ee qarnigii 1900 ka socday meesha ilaaqu la leeyahay dawladda Ingiriisku maxadaad badan ayay la soo martay dadka gobolka Sool had iyo jeerna indhahay ku haysaa dadka gobolkaas ku jira research iyo daraasadana way ka sameeyaan intii aan xorriyadu dhalan waxa jiray oo ay Ingiriisku meesha joogay niman mutacallimiina oo yiri dawladda Ingiriisku gumaad iyo dhibaato u geysatay gobolada Sool ka geysatay dooxada Nugaaleed marka waa in ay bixisaa waxa la compensation iyo magdhow waxa la oran jiray waa ninka telefoon markuu garaad jaamac iyo garaad maxamuud u yimid dawladda Ingiriisku xisaabaad bay ka soo daba dirtay oo odayaasha garaad waxa ku ninkan waxa uu sheegayo haddaad dhageysataan dawladda Ingiriisku hadeertay idin leynaysaa kadibna waxay ku yiraahdeen wariyaha telefoon oo adeer nimankaas dhibaato noo geysteen hadeer anagu waxa ma daba wadno naga daado dhibaatooda waxba kama rabno wuxuu haystaan geelay ariga ugu filan ma rabno waagaas dawladda Ingiriisku dadka wax garadka iyo dadku soo fikirayo way la socotay waagaas xilligii 60kii ilaa 69kii dawladda Ingiriisku waxay isha ku haysay say u fikirayaan dadka gobolada Sool iyo Sanaag say u fikirayaan bay isha ku hayn jirtay 60kii ilaa 69kii waxay aragtay inay ku qanacsan yihiin inay Soomaali weyn kamid ahaadaan waaga marka wax saameynaya iyo faragelina kuma ay sameyn kacaanku qoladii thawrada askarta markay dhalatay waxa jiray isku dhacyo fara badan oo ay dadka wax yaqaanka ah reer galbeedku wax bareen ilbaxnada reer galbeedku iyo shuuciyadii yar qabal lafsaneed isku dhacyo jiray badan oo dad mutacallimiin oo Soomaali oo dhan wadeen kadibna waxay aad u danayn jirtay dad badan oo gobolada Sool ka tigay iyo Sanaag oo dawladda Ingiriisku wax bartay ayay dawladda isku dhacdhaceen oo mutacallimiin ah PhD iyo master iyo waxaas aha oo mid walba yiri warsana wuxuu wadan waa khalad marka dawladda Ingiriisku waxaan leeyahay qoraal aan mar dhow akhriyay inay jeclaan lahayd Maxamed Siyaad Barre inuu xirxiro dadka akademiyiinta ka hor yimid kuwa kale ma danaynin oo marka ay mucaarad noqdaan oo marka iyadu ay gacan haadiso oo waxaan ka akhriyay maqaal berdhood aan akhriyay berdhaxaas aan akhriyay la yaabay waxa kamid ah dadka isku dhacdhaceen nin la oran jiray odayga Soomaaliyeed toos tiriyay Ali Mirac Awaale oo isku dhaceen dawladda sidana wax wadaan waa khalad buu wax loo jiga ma aha nin la oran jiray baandi Xaaji Nuur Cabdulle mid oran jiray waa isku dhaceen professor Abiy wuxuu aanu ka tagmay Siyaad Barre laakiin dalka uga tagmay laakiin wuxuu wada waa ka soo horjeeda nin la oran jiray Faarax Xuseen Gadaw isku dhaceen oo raktarka la foolaha lama tirin karo Faarax Gurale baa oran jiray rubaantu waa mucaarad anna mucaaradan ahaanaya waa intii ka horeysay intaan xisbiga la sameyn 76 intaan la sameyn mucaaradnimada rubaanta lagu xirwaay anima lagu xirwaay oran jiray baa leeyahay nin la oran jiray Muuse Idaar markii maxkamadda badbaadada la sameeyay Hussein Dhibi markii hore wuxuu ahaa attorney generalka dawladda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed marka Ingiriisku wuxuu maalin baan arkay maqaal uu ka qoray markii uu resign gareeyay dawladda oo yiri mar hadda maxkamadda badbaadada sameeyeen deegaanka tayada waa laga sareeyay tin iyo wata waano iska tagayay
markaas waxaan la yaabay maqaal dowladda Ingiriiska ka qortay oo waliba ay ku soo sawirtay ardadii ugu horeysay ee Boorama markuu ahaa dugsiga sare iskoolka Boorama markuu dugsiga inta sheekh loo soo rarin ay maxaan ku raadayay magacawday labadii qof ugu horeeyay Muusidaar iyo Hore Maxamed Goolan loo oran jiray baa ku sawirnaa niman kale gobolada ugu ku sawirnay marka Muusidaaro ku ahaa doctor ku ahaa cilmiga looga iyo qaanunka ba waxay jeclaan lahaayeen in dawladdu ay xidho marka dawladdu ay xidho waxay jeclaan lahaayeen marka inay dadkan dhulbahantu ka yaacaan si aqoon-yahanadiisu laakiin odayga ina barre muusan xidhin markaas waxay yiraahdeen Siyaad Barre was astute wuxuu ahaa nin caqli badan umuusan diyaar ahayn inuu iska horkeeno dadkan akademiyiinta goboladan u dhashay ee markaas Ingiriisku wax baray oo marka ay doonayeen inuu mucaarad ay noqdaan oo Ingiriiska iyo waxas dawladdu markay dhacday 13 Abriil 13 March mis 14 baan la saacad aanu yimid 1991 dawladda Maxamed Siyaad Barre fursad kamaysan helin dawladdu dad mucaarada oo aqoon-yahanaa oo dibadda u baxa oo markaa mucaarad qodo waxay isu geysteen intoodii weyneed ummadda Soomaaliyeed dawladdaas ka dhaxaysa haddii la rido waxa aynu ka faa'iideyno nagu garan mayno Soomaaliya wax ka faa'iido mayso inaan wax ka faa'iideyno aqlabiyadda ninkii dibadda iska baxana mucaarad ma ahayn saxaafadna kama hadli jirin kaalada dalkaaga mucaarad ku noqona ma uusan qaadan fikirkaas intii wax baratay markii dawladdu dhacday dawladda Ingiriisku il khaas ay ku eegaysay gobolka Sool ee magaalada Laascaanood markii dawladdu dhacday dawladda Ingiriisku indha dheer bay magaalada Laascaanood ku eegaysay anigu waxaan imid 13 bishii March mise 15 mise 14 waa garanaya kaliishu iyo abaartu waxba ka jiray sanadkii 1990 dawladda Ingiriisku leedahay oo helicopter ba magaalada iyo dhulka gobolka Sool oo dhan ku wareegisay hadii la yiraahdo waxay doonaysaana waxay yiraahdeen abaarta iyo baanu saaminana bishii afraad iyo saddexaad soo noqonaysa mar bishii shanaad ah baan maalintogaas biyaha laga soo dhamay Laascaanood nin dawladda Ingiriiska baan la kulmay magaca hebel baa la yiraahdaa mad wuxuu sameeyay biyaha magaalada buu yiri bal waxbaan ka qabanaya motor lister oo ku Ingiriisku leeyahay ayuu toga u riday xaqana wuxuu ka dhisay waxa la dhaho tangi baana afku ka saaray biyuhu ku shubay marka kadib bay yiri booyadaha ka dhaansada sax bay ahayd oo dadku biyaha yar iska fadhiisiyo huubadan aad dacda toos uga soo qaadsan ma aysan garan laakiin waxay marxaati u ahayd danaynta ay dawladda Ingiriisku danaynaysay magaaladaas dawladdu Maxamed Siyaad Barre wuxuu joogay Boorloobo joogay markaas degdeg bay u yimaadeen dawladda Talyaaniga iyana waxay bixisay beegaas mashruuc biyood dawladda Talyaaniga halka iman kari weydii waxa loo dhibay Oxfam hay'ad la yiraahdo Ingiriis loo dhibay subaxdii dambe boqortooyada Ingiriiska waxa la yiri nimankan reer Hargeysa oo jooga waxay yiraahdeen hana la itiraafo markaas waana la socdaa boqortooyada Ingiriiska waxa u dabeecada baa la yiri marka wax la baarayo wixii dadkii dhulka xukumi jiray iyo wixii ka nool East Africa nimanka imperialistayaasha wixii ka nool baa loo yeeray waxa la yiri laba nin baa ka noolaa mid dhiisay Laascaanood ka noqday oo barigaas gabadhi ku dhintay oo John Darrest la oran jiray iyo nin kale marka la yiri World Bank looga yeeray oo odaya niman kale mas'uuliyiin oo soo raaceen wala Laascaanood bay yimaadeen dadka waxay weydiiyeen maxaad aaminsan tahay anagu Soomaali inaan kala goyn baan aaminsanahay baa la yiraahdeen ka John Darrest wuxuu dadka weydiiyay uqaashi hore hebel iyo qaar magacyo la garan waayay mada warbixinta risaalada way qaateen inaan dadkan aaminsanayn in Soomaalida la kala googooyo
sagaashan iyo lix iyo sagaashan iyo toddoba niman dowladda ingiriiska ka socda baa habeen iyo maalin magaalada Laascaanood iman jiray oo Hargeysa ka yimaado Addis Ababa ka yimaada Ingiriis ka yimaada Hargeysa soo mar halka yimaada oo baarid magaalada ku sameyn jiray dadka iyo dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo xol qaarkood wardoonka dowladda Ingiriiska ahaayeen mid baa laga sheegay wuxuu yiri in cigaal uu idin soo weeraraya markaasuu yiri nama soo weerar karo markaasuu maxaa dhacay suuli de sidii ninka leedin jabiyaan u jabinaa markii hore intuu waxaan u maleynayaa Garad Cabdiqani u tagay buu yiri waxaan rabaa in magaalada buuraheeda iyo hareeraheeda soo eego markuu halka madhadhiisiga Ingiriisku deganaan jiray ilaa halka ka soo wareegay oo gooja cadamarayo oo xagga xargaga u sii baxayo galbeed oo magaalada dhan buuraheeda ku soo wareegay buu wuxuu yiri ninkii gaariga ku waday oo in cigaal wuxuu leeyahay waa in soo weerarayaa markaasuu yiri na soo weerari maayo markaasuu yiri oo waayo markaasuu yiri buurahan oo dhan ciidan baa ku jira maya wuxuu yiri markaan ku yiri sidaan idinka idin la dagaalamana buu intuu qoslay oo gaariga saab shukaanta gacanta ugu dhuftay qoslay oo gaariga aad u waday buu yiri oo buurahan ciidan idin kuma jiree markuu yiri sidii idinka idin la dagaalamana dowladda Ingiriisku waa dowlad ilaa iminka bini aadmiga waxa loo yaqaano oo nifaaqa iyo duplicity ugu badisa marka wax badan baa maskaxdiisa ku jiray uu qarinayay oo ma dhaw xulaha wad iska kala qaybsami doontaan iyo programkayaga ahin magaalada Laascaanood jihada Hargeysa laga qabsado guud ahaan dowladda Ingiriisku waxay mas'uul ka tahay qabsiga iyo joogista magaalada Laascaanood maamulka qolada ay saaxiibada yihiin ee Hargeysa bay uga wakiila marka waxay yiraahdaan an harb aan wakaala yiraahdaan gaaladu carabtu gaaladu tira proxy war dagaal wakiil marka dilay horta reer Laascaanood waxay oran jireen waa dagaalanaaye maxay dagaal ahaan wax isaga celin waayeen su'aal meesha ku jiri karasa waa Laascaanood meelaha kale ma aha Laascaanood waa ooshi goboladeeda anigu waxaan Laascaanood ku metelay oraha berigi dagaalka Yemen Saudi ba qolada Ali Salim al-Bayd ee Junuubka ba markiiba laga qaalib noqday oo laga qabsaday qalcadeen wax loo yaqaano xirihi askarta adkaa sida qalcad canad loo oran jiray oo markiiba ciidamadii shimaalku adan ku soo wajahmeen oo jiha walba dagaalkii qoladan la soo jabiyay Junuubiyiinta marka nin madaxweynaha Ali Salim al-Bayd la yiraahdo baa BBC Soomaaliya wareysatay markaas war Ali Salim al-Bayd ma horta maxay isaga celin weydeen nimankan shimaaliyiinta marka hadal aan la yaabay buu idaacada BBC bariga dhageysan jiro wuxuu yiri war anaga waxaan haystay buu yiri xarbun qabaliyun tadcamaha usuuliyada dawliya wuxuu yiri xarbi qabaliya oo usuuliyada dawliga ay taageerayso marka muxuu uga jeeday qabiilkan dhinacan degan waqooyi qabiilka ugu badan Yaman weeyaan oo xaashid baa la yiraahdaa xaashidka waxa u taliya nin sheekh qabiile ah oo la yiraahdo Cabdalla Ahmar sheekh qabiile Cabdalla Ahmar yiraahdo ayaa u taliya qabiilka xaashidka Sanca degan Cabdalla Ahmar waa la yaqaan Alle raxmo u dhintay waa qoyska qabiilka 9 milyan xaashidiinta la yiraahdo sheekh qabiilahooda guud Ali Cabdalla hatta iyagu ahaa hadduu Ali Cabdalla iyaga ahaa laakiin Sanca sheekha jooga waa Cabdalla Ahmar waana gudoomiyaha baarlamaanka waana amiirka xarakada islaax marka wuxuu leeyahay xarbi qabaliye oo nimankan xaashidka ay nagu hayaan oo naga badan oo ay taageerayso usuuliyada dawladda wuxuu ka jeedaa macna ikhwaan muslimkii adduunka oo dhan ba iyagoo Cabdalla Ahmar taageeraya gudoomiyaha baarlamaanka haddana sheekul qabiilihiya markaas wuxuu xarbun qabaliyin weeyaa wax kale horta qabiil baa nagu hayay buu tadcamaha usuuliyada dawliya
usuuliyad dawli hena xagga dambe kaga jirtaa usuuliyadii ikhwaanka adduunka oo dhan de maxaan isku celnaa marka anu hadaan si kaftaba u yiraahdo waxaan lahaa laascaanood waxa ka jira حرب قبلي تدعمها الصهيونية الدولية وأذكتها إن ذاتك كان إن حرب النوع عاصة إن أي محاولة كورا سهلة هرت أي كتشيران وأي وحركسا نين سفيرة بأنتو عاد سبب كسر ضافو أما حمر كسر ضافو وهرجسيه ما دو بورنا يا إن annagu waxaan nahay dad saaxiib ah marka soo niyad dimuqraadiyad baa la fidinaya dadka aad saaxiibka la tahay ilaa dimuqraadiyad bay fidinayaan dad kale xorriyadoodu lumiyeen uu fahmaya waxa ka jira gobolada bari dawladda Ingiriiska fahamsan way u bareeraysaa inay dadna self determination kiisa la lumiyo dadna la yiraahdo maaragtay waxa tihiin saaxiib baatiin marka horta gobolka duruufta ka jirta وحرب وظروف دولية ولا جرنا كرا يا باهيد الله قبل أسعاره دين الصومالي لم يدسناته وحمر هاستكتو قيمها يكفر دارين كنوع عاصي الصومالي وفر ده قفل بو جرنا كرا إن الصومالي مركب مديسان تهاي لكن مقارنة الأسعارات بلا إسكاب ده السناجي قبل كاس محور كبريتش مقني هاي وحيشك جلنا من نمط الصومالي أرنتها الدولة الإنجليز كمسؤولية هذا قاعدس أخلاقيا dhibaato wixii hadda ka timid iyo tii hore iyo dhulumka yimaada iyo dadka la dilayo يتحمل المسؤولية بريطانيا والصهيونية العالمية باقاده سو لاس عنود دباتده ka jirta